marka waxaa caadi isliga weligeedaa laisfuri jiray weligeedaa laisfinishi jiray labada qof hadday isfahmi weyso dhac waa lagu kala haadaa magaalka horta reer social media waxaad ku jeclahay dadka waa isku daraysiin waa kala furaysiin dadka waa isku muuneynaysiin waa kala furaysiin saasaa idinku jeclahay ilaahay amarkiisa assalaamu calaykum dhammaan waa idin salaamayaa asxaabteyda ku xiran pagekayga youtube-ka sidoo kale maasha allah waa idin xiisay baryahan dambe xoogaa youtube-ka ma soo gelaynin safaradeyda iska badnaa mideeda kale xoogaa xanuun yarna waa iska jiray oo maaragtay waa iska caajisnaa marka horta soo dhawaada aad baa idin soo dhaweynayaa waa idin jeclahay dhammaantiin ii noolaada inta maaragtay wanaagayga jecel iyo inta xumaantayda jecelba waxaa waaye waa salaan qiimo badan tan labaad horta waxaa jirta baryahan naxan laisla daba socday oo la dhahay shaadiye iyo cabdifataaxa isfureen shaadiye iyo kana isyeeleen inta waaye intay ka dhacday horta waxaa idin weydiiyey yaa markii lacal haddii xataa la isfuro maxaa gabar haddii lagu furfeer maa kaa jabayso maaragtay dhimanay haddii lagu furo ma la dhimanaa us gabdhaha idinkaa nii jabinaayo gabadha markii la furo waxaa la rabaa inaad dhahdinaaye ku soco rabaya dhexda xiro inta ka bax inaad dhahdinaa bal rabaayo laakiin gabdhihii idinkaaba moraalka ka dilaayo niida ka dilaayo maxaa haddii la sufro sfeer maa dadka jabayso yaa 20 jiraa tahay gabar yaraa tahay yaa haddii lagu furo welcome to the wall ma fahanti adduunyo cusub to the new wall yaa soo dhawey adduunyada cusub waayo maxaa ku dhacay oo niida lagaaga dilaya war gabdhaha la furay aan ku iri fifa gabdhaha la furay maxaa gabdhaha loo ciilciilaa war waa la furaa mideeda kale feer maa ka jabaysa hadii la furo yaa waxaa idin weydiiyay hadii gabdhaha la furo feer maa dadka jabaysa yaa marka asxaabta maxaa isleedihiin idinka see u aragtaan reer commenty run ahaantii kolley qofka bini aadanka ah labada qof hadday isfahmi weyso haddii ay maaragtay adduunyada ilaahay wuxuu waasac uga dhigay labada qof hadday isfahmi weyso in ardul waasaca waa waasac adduunyada faham labada qof hadday isfahmi weyso dhac waa lagu kala haadaa magaalka maxaa wareerkeena iyo rafaad iyo inta ka baxay inta ka dhac maxaa keena ya marka waxaa caadi iska dhiga weligeedaa laisfuri jiray weligeedaa laisfinishi jiray maxaa marka caadi iska dhiga jawiga qabsada bismillah alalaaska baxay waa aroos asaay baa ii saari rabteen what's wrong with you ya reer raxan jecel nabad ma jirtaa naga dhaaf yaaq naagaan lasoo furin ma jirto aboowayaalo iyo abaayaalo yaa qaarkooda xataa garoobo waay marka caadi iska dhiga waa la isfuraa waa la isqabaa horta reer social media waxaad ku jeclahay dadka waa isku daraysiin waa kala furaysiin dadka waa isku muuneynaysiin waa kala furaysiin saasaa idinku jeclahay ilaahay amarkiisa aniga dirina agtiina ii taalo saam idin jecli midinku haysti af kalan kala qaadi lahay moogiye waa idinku haystaa marka asxaabta qaaliga maxaa isleedihiin mashaadiin mala furay mala qabaa maxaa isleedihiin lacala ya aniga waa la isoo wada wax telefoonka cid aa ka qabto male because lacala even haddaa murugsantahay muruga lagugu sii daraa ma fahanteen ma fahanteen marka iga daaya barbalamka iyo barbagandada la iga daayo aniga baashaal iyo dalxiisa ku jira rafaadka iyo dhibka idin haysta maba i haystaba ani waa baashaalooyaa inta ka dhaca inta ka bax inta ka yaa iga dhaafa gabar raaxaysanaysaa murug ku dilibti iga dhaafa yaa qaydad muslimaatiin oo loo soomo loo salaado soomna waa soo dhaweeya caloosha laisku furo magood intii wixii raba lagaa haleeyo oo adduunka laisku qaso shacbaanka markii bisha ugu dambeyso 5 bisha oo shacbaanka ugu dambeysa lagu imaano aan iscafinahe shacbaana lagu jiraayo lagu dhaha dhoyna waa lagaa dhigay saan talama waxaan ka baqaa qof dhan dambigiisa in qofka loo cadaabo fahanteen
marka horta waxaa waay dik wax xun igama aadan sheegina ani waa jeclahay waa ogahay waa jaceylka iyo urisa dheh ani waa ogahay ina jeceshiin ina gabadhiina yareed ahay in oo maaragtay shaadiidiina ahay in gaabtiina ahay horta aadan ogahay in aad jeceshiin 100% waa ogahay qof walba teleefonkeyga soo waxa iyo qof walba oo message soo qoro wuxuu i dhahaa shaadiyo kulay waa ku jecelnahay cadowgaaga ilaahay cagta hoosteeda cadowgaaga u noolow cadowgaaga cagta ka hoos aligu dhahaa ma fahanteen 100% aadaan ugu faraxsanahay inay dadkayga jecel yihiin mar walba ay dhiirigeliyaan ma fahanteen marka waxaa waaye aniga waa idin jeclahay dhammaan idinka isku duuban aada idinku mahadcelinaa qaabka quruxda badan qaabka oo maaragtay oo ay la qiiroonaysiin inta baa ku haystaa ma fahanteen marka sheekadan kafeega ka leedamo marka waa mahadsantihiin kulligiina mideeda kale waxaa idin ogeysiinaa qofka haddii la furfeer ma jabto lug ma jabto gacan ma jabto 20 jiraa tahay kaal iska arag maxaa marka walaalayaalo marka asxaabta caadi iska dhiga xaalad dejiya wixii kala kicis waa kala kacisteen wixii kala haad waa kala haadseen wixii isku keeni karteen waa isku keenteen marka ilaahay cimrigiina cawgooda ilaahay ma ka dhiga aniga garabkiin lixaad garoor wax kalo oo idin dhow makasaay meel meeshaan aad ka dhaxgal warkee sankii saas marka uu imaanay turki sankii aan ku iri dhinacana waa ka bararay mana hadli kariyaan ku dhunta dhan raf waa ma fahanteen marka waa idin jeclahay dhamaantiina aada u mahadsantii marka hadda idin la hadlaa asxaabta qaaliga hadda idin la hadlaa horta soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad horta alxamdulilah shukrillah waxaan ku faraxsanahay maanta in uu reerkaygii iyo gurigaygii iyo familigaygii aan weli ka dhex bixin aan weli ku dhex jiro horta ilaahayna iima keeno in aniga iyo reerkayga aan kala tagno because waxaan nahay dad isku faraxsan waxaan nahay dad isjecel waxaan nahay dad abid aanan kala tegi doonin aniga cabdifataax waxaan nahay 2 qof oo saaxiibo waxaan nahay 2 qof oo walaalo waxaan nahay 2 qof oo isjecel waxaan nahay 2 qof oo awlaad wada dhex taalo uma maleynaa horta sahalkaas inaan kala tageyno reer social media dadka wadna isku dartaan waadna kala furtaan runaantii haddii sahalkaas aan isku fureyno cabdifataax iyo aniga mar horaan isfuri lahayn haddii sahalkaas aan ku kala tageynana waa horaan kala tegi lahayn aniga cabdifataax laakiin waxaan idin sheegayaa dhammaantiinba in anigii reerkayga weli ii dhisan yahay oo gurigayga aan ku qanacsanahay 100% aan ku faraxsanahay horta wax walba waa calaf wuxuu ilaahay qorana dhan looguma tagi karo wixii qoraala ma ogi laakiin maanta ibri ismalihi reerkaaga iska dumi gurigaaga iska dumi ma fahanteen marka aniga reerkayga waa jeclahay wiilkayga aabihiisa familigayga waxaan ugu faraxsanahay sidoo ilaahay in uu adduunka i keenay ugu faraxsanahay ma fahanteen marka waxaa waa hubka dhiga dad badanaa hadal ka tegay dad badanaa maaragta wareeray yaa marka waxaa waaye hadal yo idinka tegin kuley dadka oo wanaaga jecel hadalka ma tegin dadka wanaaga jecel hadalka ma tegin marka waxaa idin leeyahay saas u ogaada aniga gurigayga ilaahay igama dumiyo ilaahayna maaragtay iguma kalifo inaan maanta gurigayga iska dumiyo gurigaygii inuu ii dhisnaado ilaa aan ka duqo waayo waa jeclahay mana rabi doono marka waxaa waaye asxaabta qaaliga saas u ogaada shaadiya cabdifataax way isqabaan way isla nool yihiin muhiim ah 2 qof haddii maanta safar aan aado dee ma aragtay 2 qof muhiim aha marka laisla joogo baa laisku imaan karaa wax laisku duubi karaa laisla ma aragtay 2 qof isku arki kartaa soo ma ani waxaan tagay Nairobi
aroosi badanaa u tagay, shaqaa u tagay, waa soo shaqaystay, waan imid. iqaamada waxay iga dhici rabtay 4 bisha, koley waxba kama dhinna. markaan saas u imaaday 10 beri aa joogay. 10 ka beri aan jooga waan xanuunsanaa ilaa markiis tacbaana iska noqday. markaan saas u imaadabo waan xanuunsanaa ilaa markiis 2 beri bixitaankayga oo ka dhimay 3 beri aan fiicnaaday. kadibna waa soo baxaybo yaa waan imaaday. mashquula iska gal maxamed xitaa xoogaa wuu iga daqramay, meel uu iga dhacay inta hooyo soo macsalaameynaa dhahay oo inta meeshan oo ka daqramay 3 qodob baa la soo talay. anigoo waxaa ku dhahay oo si kale wallahi soo baxay. bixitaanka xitaa inaan iska kansalaa rabay. Cabdifataax wuxuu ugu yiri macaan bixitaankaaga ha kansalin, wiilkayga anaa la joogo. yaa waa hooyo labaadna waa Cabdifataax, markaa runtii sheego hooyo labaad waaye. booskaygana wuu buuxin karaa 100% waa ku kalsoonahay. iyaga marka iqaamooyinkooda ma dhiceenin oo aniga xilli yara la isiiyey, iyagana xilli fiicana la siiyey. marka aniga saas darteeda u soo baxay iyo howlo shaqo oo meeshan aan kala lahaa Turkiga u imaaday aan u soo baxay iyo iqaamadaas darteeda labadaas option u soo baxay. marka asxaabta horta aad u maadsantihiin. dad badan aa ka xumaaday maanta Cabdifataax iyo Shaadi kala tagooda iyo inay kala tagaan. dad badan aa ka xumaaday. marka waxaa waaye dadkaasna 100% aad iyo aad ugu mahadcelinaa maadaama ay ka xumaadeen. haddii ay run ahaan lahayd waxay tuseen dadkaas qalbigooda iyo niyadooda iyo sida ay maaragtay uga xumaadeen kala taga ani Cabdifataax. marka ma kala tagin, alxamdulillah alshukru ilaaha mahad iskale. aan meeshan shaqaa u imaaday, shaqaa u joogaa. Cabdifataax iyo wiilkayga iyo walaalahay iyo hooyaday iyo hayaan. marka waxaa waaye midna waa idin sheegaa, dadka familigaas ku dirinina, dadka kala furinina. reer social dadka waa isku dartaan, waa isku guursan. labada qof markay soo fariisto waxa dhayso saas ku soo baxayaan le, saas ku nuurayaan le, saas adahdi lamadii qof markii saas isku soo dhawaadaan nay waa isku diraysiin. inta ni laga galaa yaa wixii fiyus raas waa dhaafiya. inta idinka galeena unuka reer lamaano inta idinka galaaya, inta idinka duunka joogtiin social media dad cusub hala keeno. dad cusub oo baadi ka imaadeen hala keeno social media, because qof walba wuxuu rabaa fiyus uu rabaa. ana horta waa kala damiir fiican yaa koo dhaha inaan dheeraadana ma rabo. hadal iyo miiqna ana tabartay ma aha. ay buday ana shaqadeeda iska mashquulsan iyo howlahayga ma ka gaaro warwar iyo waxaas ma ka gaaro. ma fahanti maskaxa uga gaaro ma hayo. marka waxaa waaye aad u mahadsantii 100% waa idin jeclahay. la'aantiina abaar. inta ka xumaatay we love you. inta ku faraxdayna wallahi kulli wax aan dhahno aqaan idinkana waa idin jeclahay. ma fahantiin marka waa idin salaamayaa. dadkaas ceeb ma laha because views ha jiro. ma fahantiin dadkaas ceeb ma laha, dad fiican ha jiro laakiin dan views ha sii jiro waa ku jiraan. ma fahantiin marka saasay wax u jiraan. xaaladda ogaada. waan idin jeclahay iyo noolaada. salaam qiimo badan idin salaamayaa. Ramadan Kareem.